waxay ugu dhacday 3 sano kahor xilligaa waxaan degnaa meel baadiye ah. waxaa lagu jiray xilli qaboobaha oo qaboob daran ayaa jiray. maalinka guriga ma ka bixi karin. weligay ma iloobi doono maalinkaas wixii ugu dhacay. mar ayaan waxaa isdhahay banaanka soo fiiri oo dharkayga ayaan soo qaatay dharka qaboobaha. kadibna koofiyad ayaan xirtay. waxaan u sheegay xaaskayga in aan banaanka aadayo. waan soo dhaqaajiyey. geesayga markaan fiiriyo qabowbka markasta marka ka dambaysa waa uu soo dirsanayay. ma la sii bixi karin banaanka. dhankayga midig waxaa ku yaala guri markaa qadiimi ah. inta badan waqtigayga meesha ayaan ku qaadan jiray oo gurigaas wuxuu ahaa guri cabsi badan. gurigaas cidna ma ay degnaynin oo dadkii degnaa waa ay ku guureen. habeen kasta waxaan ka maqli jiray sawaxan fara badan guriga oo dad ayaa ka qaylan jiray. maalinka waxaan isdhahay guriga geesihiis fiiri. guriga wuxuu ahaa guri cajiib ah. markaa intaan fiirinayay guriga geesihiisa ayaan waxaan ku arkay guriga geeskiisa raad oo markaa meel laga soo baxay ah. raadkii markii aan soo raacay oo aad aan u soo raacay intaan fiiriyey raadka oo meel duurduur ayuu u keenay oo gurigii dhan ayuu igu soo dhaqaajiyey. waxaan meel ku arkay geed hoostiisa qof taagan. qofkaa wuxuu siday dhar madow ayuu siday. waa uuna sii jeeday. jaakad ayuu wejigiis ku qarinayay. aad baan u cabsaday. waxaan isdhahaa miyuu ku qaban doonaa qofkan. kadib anigoo baqay ayaa aayar ugu soo dhaqaaqay. mar waxaan rabay inaan sawiro oo kaamirad ayaan sitay laakiin nafteyda ayaan u cabsaday. waan ka soo dhaqaajiyey oo dhanka gurigayga ayaa soo dhaqaajiyey. kadib xaaskayga ayaa su-aal i weydiisay. waxay igu tiri maxaad u soo carartay oo maxaad u walwalsantahay igu tiri. waxaan ku dhahay boorsada inoo diyaarin. durbab xaaskayga waxay bilowday in ay dharkii ay ku rido boorsooyinka. kadib waxaan ku dhahay wax kasta aniga ayaa ku sheegi doona sirta ka dambaysa. aad bay u walwashay xaaskayga. kadib waxay u tiri maxaa jira oo dhib ah. habeenkaa oo dhan aad iyo aad ayaan u walwalsanayn. aniga ma rabin inaan u sheego xaaskayga oo waan boojeynayay sababtoo ah waxay ahayd wax cabsi badan. kadibna waxay ugu tiri maxaad qarinaysaa. waxaan ku dhahay waxba ma qarinayo ee seexo. waan seexanay. habeenka anigoo walwalsan ayaan seexanay aniga iyo xaaskayga. kadibna mar waxaan dareemay shanqartii ayaa soo badanaysay. kadibna albaabka ayaa nala soo gargaraacay. waa cabsaday oo nafteeda ayaan u cabsaday. waxaan ku dhahay xaaskayga bal isug aniga ayaa soo fiirinaya. kadibna daaqadaha ayaan iska jeegaraynayna waa iska fiirinaynay hadduu cadow noogu soo dhuunto iyo haddii kale. xaaskayga aad iyo aad ayay u walwalsanayd. anigana sidoo kale waan walwalsanaa. mar ayaan daaqada waxaan ku aragnay qof taagan oo qofkii ayuu ahaa. haweennimadkii ayaan guriga sidii ugu soo baxnay oo gaarigayga ayaa soo qaatay. kadibna waan ka soo dhaqaajinay guriga. guriga deriskeena wuxuu ahaa guri innaba aan caadi ahayn oo cajiib ah. habeen kasta waxaan ka dareemi jiray shanqar. maalinka xiga guriga ayaan imaanay si aan ugu soo guurno gurigaas isagoo dhan. kadibna waxaan soo qaadanay dharkeena aniyo xaaskayga. ninkaas hadduuna qaban lahaa maxaa nugu dhici lahaa.